in the name of Jesus. Baptize them with your presence, O God. Let them hear your voice saying, this is the way. And they will walk in it in the name of the Lord Jesus. kulan wacan daawada waa mar kale iyo muuqaal kale. bartan waa xogta qarsoon. muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa Joy Isa, haweeneyda Kirishtanka ee heysata baraha bulshada Soomaalida, gaar ahaan reer Somaliland. waxaa lagu eedeeyay in diinta Kirishtanka ay ka faafinaysa Hargeysa. markii arrintaas uu shaaca ka qaaday, Cabdimaalig Muuse Coldoon laftiisa waa la xiray. Muuse Biixi oo difaacay shaqada gabadhan. muuqaalkani ayaan ku soo koobi doonaa daawade. haddii ay tahay markii ugu horeyso uu channelkani ku soo gaaro, bartan waa xogta qarsoon. aniguna waxaan ahay Yaxya Maxamuud Maxamed. waxaan ka codsanayaa inaad ugu soo biirto. We receive your peace. We receive the strength of God. Let us pray together. We receive the peace of God. In every troubled home, we are assured of our salvation in you. sida Coldoon iyo dad kale ay qoreen, Joy Isa waa wadaad diinta Kirishtanka faafisa oo dhalatay dalka Nigeria. magaceeduna waxaa horgalo ah Pastor. markaad baraha bulshada ku baarta magacan Pastor Joy Isa, waxaa ku soo baxaya qof dumar ah ka shaqaysa arrimaha waxbarashada iyo diinta Kirishtanka labadaba. erayga Pastor markii aad qaamuuska Ingiriiska lagu eegana waa mas'uul kaniisad ama bulsho Kirishtan ah. si kooban haddii loo yiraahdana waa wadaad Kirishtan ah. Joy waa gudoomiyaha jaamacadda Barwaaqo iyo haweeneyda baraha bulshada haysatay diinta Kirishtanka faafinteeda caanka ku ah. waxay jaamacaddani abaarso, gaar ahaan Barwaaqo qaybta abaarsataj loo dhiibay muddo dhow. waa Kirishtan weliba monk ah, waxaana ay faafisaa diinta Kirishtanka. asal ahaan waa gabar Nigerian ah kana soo jeeda magaalada Lagos. waxa ay dardar gelisaa sidii diinta Kirishtanka loo gaarsiin lahaa dunida, siiba wadamada Afrika ee saboolka isla markaana Islaamka. sidoo kalena waxay ku dhiirigelisaa guurka u dhaca hab Kirishtanka in la isguursado diinta Kirishtanka sida ay qabaan. Maybe Joy will go to school A, Bidemi school B, Adewale school C. Is that something you want to do? Because you discover that this school A, Joy doesn't like maths and English too much. She likes her school. sida laga arki karo muuqaalkani, waa dood la xiriirta dib u qaabaynta mas'uuliyadda kaniisadda ee bulshada, taasoo si weyn ay u garfaynayso Joy Isa. Joy waxay ka soo shaqaysay waxbarashada dhalinta soo koraysay gabdhaha oo si gaar ah ay diradda u saari jirtay. Okay, for those of you who don't know, I'm a teacher. So I have 3 stories tonight from the Bible. Joy Isa sidoo kale waxay ka shaqaysaa diimaha faafintooda, si gaar ah Kirishtanka oo ay ka shaqayn jirtay kaniisad ku taal dalka Nigeria. sababta safarka ay ku timid Hargeysa waxaa lagu sheegay hadal laga tiray boga kaniisad lagu sheegay. waxaan u qornaa sida tan: duco ayaan u reebeynaa wadaad Joy oo Somaliland u tagaysa faafinta diinta, ayaa lagu yiri qoraalkaas 18 July 2021 soo baxay. markii la bilaabay in baraha bulshada lagu dhaliilo sida ay wax u wado, Hargeysa ayaa durba waxaa laga soo saaray qoraal iyadoo lagu bedelay sida tan qoraalkaas. isla markiiba kaniisadda Declaration waxay bedeshay qoraalkeeda, waxaana ay u dhigtay sida tan: waxaan raalgelin ka bixinaynaa qoraalka Twitterka 18 Luulyo kaas oo aan si qaldan ugu qornay barteena kuna saabsan ujeedada Mrs. Joy Isa ay u tagtay Somaliland. taas waxay ahayd qaladkayaga, ma ahan mid ka timid Mrs. Isa lafteeda. Mrs. Isa weligeed ma aysan ahayn shaqaale kaniisadeed. waxaan Joy ugu ambaliyaynaynaa inay sii wadato xirfadeeda 27 sano ee ahayd waxbarashada oo haatan ay ka sii wado Somaliland, halkaas oo ay ku biirtay urur mar walba ixtiraamo oo ilaaliya dhaqanka muslimiinta maxalliga ayaa qoraalka lagu yiri. cajiib. haddaba maxaa loo xiray Coldoon? muuqaal baraha bulshada lagu baahiyay ayaa muujinaya Coldoon oo askar ka tirsan booliska Somaliland ay xabsiga ku sii wadaan isagoo ku sugan magaalada Burca. mas'uuliyiinta gobolka Tigray iyo laamaha ammaanka ayaa weli ka hadlin waxa uu salka ku hayo xarigiisa. ha yeeshee toddobaadkan ayuu waxa uu naqdiyay khudbadu Muuse Biixi ka jeediyay xaflad uu ka qalin jebinayeen arday dhammaysatay waxbarashada jaamacadda Barwaaqo. madaxweyne Biixi ayaa khudbadiisa ku sheegay inaysan jirin wax dhibaato ah oo uu ku arkay dugsiga Abaarso oo aan ka inay soo kordhiyeen waxbarasho tayeysan oo ay ka faa'iideysteen ardayda Somaliland. ilaa hadeer noohay waxaan u baahanahay inaynu mashaakilka in haysta qaarkood isla fahmno.
waxaa had iyo jeer lagu murmaa iskuulkan barwaaqo iyo jaamacaddiisa dad badan oo ama aan fahamsanayn ama jibadooda aan darsin waxa ka socda ama u cadowa islaamka ayaa waxay ka fidiyaan warar aanay hubin waxa ay yihiin taasi waxay u kaliftay inaan tago dugsiga Abaarso oo shaqaynaya anigoo keligeeya oon cidina la socon oo gaaro yar wata si aan u ogaado waxa ka socda waxaana soo taabtay in iskuulkaasi ay ka socdaan wax qarankeenu u baahan yahay islaamku u baahan yahay islaamkuna u baahan yahay oo maxay waxaanu isweydiinaynaa dadka qisaska ka qaba markuu qofka Soomaaliga ah ee muslimka ah da uu yahayba uu la kulmo ninka Mareykanka ah ama ka Ingiriiska ah ama inanta Soomaaliga ay la kulanto ka Ingiriiska ah ama ka Yahuudiga ah ama ka Hindiga ah caabida lo'da inuu baqayna galo dadkeena in la gaalaynayo teena la inaga saarayo oo aynu nahay dad daciif ah oo markaa maskaxdooda la qaadanayo oo markaa wax lagu shubanayo anigu taa waan ka soo horjeedaa cabdimaalig ayaa sheegay in khudbadda biixi uu ku wareeray dadka dhaliila dugsiyada Abaarso isagoo aanan hayn xog sax ah oo ku saabsan Abaarso marka uu dalka joogo gooba uu dugsi booqanayo tusaale ahaan oo kale bal qiyaasa intuu joogi karaa muddo kooban badh ilaa saacad baa laga yaabaa inuu joogo dugsigaas muddada yare kooban muxuu ku ogaan karaa muxuu xog ku ogaan karaa waxa la sheegay ee tirada badan sidee buu ku ogaan karaa muddada kooban taas waa taas qodobka labaadna waxa laga sheegay dugsigu de ma aha wax la taaban karo oo saa loo gacanta loogu taaban karo ama la arki karo badankoodu oo ma aha inuu hadduu meesha ugu tago wixii la sheegay inuu arkayo sidii maxaa khamri xashiishad dad wax leynaya hub saas ma meesha waxa lagu hayaaba waxay u badan yihiin waxaan la taaban karin waa barbaarin waa afkaar baa lagu fudinaya ardayda afkaar baa lagu shubaya waxa weeye sanawaad soconaysa sidee baad ku ogaan kartaa marka yani ugu badnaan saacad saa lagu ogaan karaa teeda labaad marka loo yimaado maxay kuu sheegayaan maxay kuu sheegi lahaayeen ay kaaga warrami lahaayeen wixii lagu eedeynayay may kuu sheegayaan dabcan dee waxa weeye jawaabtu waxa weeye waa maya haddii uu madaxweynuhu uu doonayo inuu xogta ogaado sida uu sheegay waxay ahayd inuu guddi madax bannaan oo lagu kalsoon yahay loo saaro oo ummaddu ay raalli ku tahay oo ay culimmaduna kow ka yihiin guddida xubna ka yihiin iyagaa loo soo ogaan lahaa iyagaa ummadda u sheegi lahaa iyagaana ku soo noqon lahaa madaxweynaha oo u sheegi lahaa waxa halka ka jira Aldoon ayaa sidoo kale qoraal kale uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in haweeneyda la yiraahdo Joy Isa inaan lagu kalsoomin waxaana uu ku eedeeyeen magaalada Hargeysa ay ku faafiso diinta Masiixiga ee Kirishtaanka haweeneydani waa gudoomiyaha jaamacadda Barwaaqo ee shabakada Abaarso magaceedu waa Joy Isa waxa loogu yeeraa Pastor Joy Isa sheekad Joy Isa dhalashaan waxay ka soo jeedaa Nigeria waxay faafisaa gaalnimada oo dadku ugu yeedhaa iyada oo dadaal weyn ku bixinaysa fac noocee ayay soo saaraysaa ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdimaalig Muuse Coldoon koor intaan la xirin haddaba Coldoon ayaa xabsiga loo taxaabay xabsiga dhexe Hargeysa ayuuna ka soo muuqday isagoo booliska ay u sii wadaan halka markii ay baraha bulshada qabsatay haweeneydan iyana si degdeg ah ugu baxday Hargeysa muuqaalkeeni koobnaa waa naga intaas wana la wadaagi kartaa daawada aragtidaada nabadgelyo